caasho maasan tahay maanta waxaan soo saarnay faallo kooban oo aan diiradda ku saarayna arrimaha doorashooyinka si og tahay dhammaadkii bishii hore iyo bilowgii bishaan garowe shir ballaaran oo ilaa 800 qof ay kasoo qayb galeen baan ku qabanay oo siyaasiyiinta badankooda ay yimaadeen Soomaaliya heer gobol iyo heer federaal markaasna waxaa la filayay in kulamo gooni ay yeeshaan siyaasiyiintu in arrinta doorashada cakirneyd xoogaa hore loo dhaqo arrintiina way si cakirantay oo sida muuqata waa la kala taagan yahay weli marka faalladan nuxurkeedu waa qayladhaan aan u dirayno bulshada caalamka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed aan xasuusinayno waqtigan inuu dhammaad yahay ay aadna u kala taagan yihiin haddii ama doorasho maaragtay dawladdu ay goonideeda u samaysato la qabto ama mucaaradku ay mid dhinac socoto qabtaan markii waqtigu madaxweynuhu dhammaado bisha Febraayo 8deeda inay colaad iyo xasarado iyo dagaal ka dhalan karaan marka guud ahaan siyaasiyiinta Soomaalida iyo bulshada caalamka waxaan ugu yeeraynay in laga hortago inaan fidno iyo dagaal doorasho la xiriiro oo dalka ka dhicin oo wada hadal iyo is-afgarad iyo isqancin waxa la isku haysto ilaa 4 qodob ah laga galo dib u heshiisiinna laga galo gobolka Gada iyo Hiiraanba si colaada iyo isku farafiiqa looga baxo doorashada loo aado dalkana xaaladiisa loo dejiyo sida muuqata daraasadan koobanna hadda aad ku xusteen wax ka yar 20 maalmood ayaa ka harsan xilligii ay ahayd in la qabto doorashada madaxweynaha walina taas ma muuqato markaad fiirisana waxaad moodaa sida daraasadiinana ku xusan isla markaana wararka nagu soo gaarayaan in labada dhinacba ay cartamayaan waxaad tirahdeen wada hadal hala galo ma jirtaa qaab ay hadda wada hadal ku geli karaan mucaaradka iyo dawladda waa jirtaa siday nala tahay annaga waa jirtaa waxaana tilmaanay ilaa 4 qodob oo runtii khilaafku salka uu ku hayo inkastoo khilaafku meelo kale uu kasoo jiitamay waqti iska soo jiitamaya laakiin 4 qodob hadda taagan baa jira mid guddiga doorashooyinka oo dawladda federaalku magacooday baa musharaxiinta madaxweynaha ama siyaasiyiin badan oo Muqdisho ku nool iyo 2 maamul goboleed ay leeyihiin guddigaas oo guddi maaragtay dad aan kalsooni lagu qabin oo ama dawladda u shaqeeya ama maaragtay dawladda iyo madaxweynaha markaas la jira arrinta Soomaaliland cid maamulaysa xildhibaanada Soomaaliland laga soo doorto ayadana waa la isku haystaa cid maamulaysa waxaa la isku haystaa gobolka Gado oo Jubbaland ka tirsan maamul ahaan haddana taladiisa ay la wareegtay dawladda federaalku ay la wareegtay waa la isku haystaa marka waxyaabo noocaas oo kala ah baa la isku haystaa gobolka Hiiraan hadda laftiisa khilaaf baa ka jira oo Gadana dawladda federaalku waa waafaqsan tahay in maamulka Jubbaland uu hoos tagin Hiiraan oo kalena way rabtaa inuu hadda uu hoos joogo maxaa la yiraahdaa Hirshabeelle waxyaabo noocaas oo marka la isku haysto iyo waqtigii sabtay soo dhamaanayo 8 bishan waqtiga madaxweynuhu ku egyahay kulligood talaan ka bixinay Soomaaliland waxaan niri mas'uuliyiinta ugu waaweyn ee Soomaaliland ka soo horjeedo aqalka sare ninka gudoomiyaha ka ayo ra'iisul wasaarku ragid garowe noogu yimid oo ahaayeen ka wada hadlaan oo guddi loo qaateen soo gudbiyaan dadkan dawladda u shaqeeyaan iyo amniga ka tirsan yihiin ama heer maamul goboleed ha noqdaan ama heer federaal ha noqdaan ayagana dad dhaama in lagu bedelo oo kalsooni lagu qabi karo marka guud ahaan bulshada caalamka hadda leenahay Soomaalidii inay iyagu is hor fariistaan waa diideen marka in lagu cadaadiyo in la is hor fariisiyo oo ay shir isugu yimaadaan oo si waxyaabaha taagan looga hadlo marka guud ahaan waxaa anaga noo muuqda haddii ay istagaalamaan shabaabku inay ka faa'iideysanayaan haddana meelo badan qayladhaan kasoo yeerayso haddii ay istagaalamaan inuu dawladnimadii dhisay ay ku burburayso ayaguna ku khasaarayaan shacabkuna ay ku khasaarayso marka in aan dawladduna iyadu aysa iska bilaabin meelaha lagala jiro doorasho ka bilaabin mucaaradkuna aysa isku diyaarin inay dawladda ma jirto waqtiga ka dhamaaday aysa dhihin inaysa isku diyaarin oo banooniga dhulka la dhigo oo la heshiiyo oo doorashooyinka horeba heshiis baa lagu galay tanna heshiis lagu galo haddana un waxaan leenahay Soomaalidan ayaga hadda waa isqiimeyn la ayeen bal cadaadis caalamku ha saaro si loo kulmo oo haddii la kulmaa waxaan rajo ka qabnaa in waxa la isku haysto laga heshiiyo sida muuqata hadda warbixintiinan waa qayladhaan kooban golaha ammaanka aad u qayladhaamiseen iyo sidoo kale caalamka inuu faragelin ku sameeyo xaaladan hadda taagan laakiin markaad fiiriso muddada kooban ee la haysto ma tahay mid ku filan in tallaabooyinkaas aad ku taliseen oo dhan la qaadi karo haddii horta ay rabitaan jiro lana qarwaaqsado cawaaqib xumada ka imaan karta hadda in saacadan la istagaalamo hatta haddii daqiiqad ay ka hartay maaragtay waqtigii loo mudeysnaa daqiiqada xitaa maaragtay
dagaalka way ka hortegi kartaa. Haddana 20 beri ama saddex xasbi waqti aad u ballaaran weeye. Waxaa un loo baahan yahay in la is hor fariisto, waxa la isku haysto oo dowladda federaalka lagu diidan yahay ay dadka ka garbaxdo, miiskana soo fadhiisato. Mucaaradka waxa lagu haysto oo lagu diidan yahay ay soo fadhiistaan oo dowladda iyo madaxweynaha ka garbaxaan. Kadibna doorasho la isla ogol yahay sidii lagu bilaabi lahaa laga tashado. Haddii markaas ay 100 maalmood xataa qaadato oo February 8 baa la rabay madaxweyne la doortay, March iyo April iyo May xataa la isla gaaro. Laakiin inta ka horeysa laga heshiiyo hanaankii lagu gaari lahaa hataa 3 bilood iyo 4 bilood toona dhib ma lahan. Laakiin waxaa dhib ah iyadoo dowladdu ay iska bilaabato doorasho kadibna go iyo kajmal la yiraahdo. Wayna sheegeen mucaaradku inay dhihi doonaan doorasho kalena ka dhinac qaban doonaan. Waa sheegeen markii February 8 la gaaro ay doorasho aan bilaabayna dhahan farmaajo madaxweyne ma ahan ay dhahaan. Taasaa ka khasaaro badan. Markaan waxaan leenahay ka jooga shir degdeg ah la isugu yimaado 5 maamul goboleed nimanka mas'uuliyiinta ka iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo labada guddoonka baarlamaanka iyo musharaxiinta madaxweynaha ha la isku yimaado. September 17 waa la soo dhaweeyay doorashada hanaankii lagu geli lahaa. Waa la soo dhaweeyay 89% waa la sheegay. 5 baa dhiman oo ah farsamo la xiriirta. 5taas ha laga doodo, ha la soo fariisto, ha la kala karnaqsado, waxa la isku hambeeyo, shaydaanka ha la iska naaro. sidaas marka doorashaha loogu dareero. sidaas dalkan u fiican, siyaasiyiintana u fiican. laakiin habkan ah ama maaragtay loo joojin maayo oo doorasho nooc aan rabaan meeshaan raba ka bilaabaya ama go iyo kashma leh. marka waxaan is leenahay haddaan hadda lasoo dhexgelin ama madaxweynuhu asagoo hadda asagaa meesha waayeelka usa shir degdega qaban oo dadka isugu yeerin ama adduunka usa ku khasbin oo waxaan joojiyay aan la oran, waa suuragal in dagaal dhaco. haddii xabadda u horeysa dhacdana ilaahay ma keene cid joojin kartana in la waayaa dhici karta.